waxaan rabaa maanta waxa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sharaf u leh in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo nagu soo booqdo wasaaradda gudoomiye waxaan ku dheelahaa anoo ku hadlayo magaca wasaaradda shaqada ku soo dhawow wasaaradda iyo gobolka xiriir fiican ayaan leenahay maanta gudoomiyaha waxa uu yimid wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mashruuc aan doonayno oo aan ku taageerayno oo aan gobolka marsiinay oo lagu taageerayo dadkeena nugul oo xilliga adag lagu jiro insha Allah taala dadkaas gobolka uu wax badan u qabto inaan ku faraxsanahay in wasaaradii inay mataqaana qaybteeda qaadanayso sideedu waxaan aaminsanahay gudoomiye in maamulka la daadiyo sharaf bay u tahay dawladda federaalka Soomaaliyeed wada shaqaynta fiican ee dawladda federaalka iyo ka dhaxaysa gobolka Banaadir maanta in gobolkii wasaaradii dawladda federaalka kamid ah inuu yimaado oo mashruuc aan ka wada shaqeyno aad bay sharaf noogu tahay mashruucan adiga ayaa mas'uulka hadda laga bilaabo waa dadkaas baahan oo masaakiinta oo barakacayaasha ah ayaa lagu caawin doonaa sida ugu dhaqsaha badan iyadoo lagu jiro xilliga COVID-19 marka insha Allah taala maanta halkan ku kala seexanay maanta taariikhdu tahay bisha May 19keeda 2020 markubaadi mar labaad waxaan dhihi lahaa gudoomiye ku soo dhawow walaalkay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya honorable Sidiq Warfa maantii waxaa sharaf ii ah inaan wasaaradda shaqada aan booqasho shaqo u nimaad booqashadaas runtii waa mid aad iyo aad noo farxad gelinaysa ujeedada socdaalkeenu wuxuu ahaa sida wasiirku hore uu sheegay mashruuc lagu taageerayo dadka danyarta ah oo wasaaradda shaqadu ay u soo heshay bulshada ku nool gobolka Banaadir taasoo wasiirka iyo wasaaradduba ay go'aansadeen inaan kala wareegno una wareejino dadka baahan oo mudan hawshaas in la guddoonsiiyo arrintaas ayaan rajaynaynaa in ay soo dhammaystiranto waqti aan fogeyn haddii alla idmo isla marka ay soo dhammaystirantana bulshada mudan ayaan gaarsiin doonaa insha Allah sidoo kale wasiirku sidoo uu sheegay waxaa jira mashruuc kale oo kan ka horeeyay oo aan assessmentigiisi ama kormeerkiisi aan sameynay goobtii laga fulin lahaa oo ku saabsanaa agoonta iyo dadka darbiga jiifka ah in mataqaana meel lagu xanaaneeyo loo dhiso taasna sida uu sheegay wasiirku waxaan qorsheynaynaa inay naga caawiso dawladda Qatar oo markaas yacni ay noo soo marsiiso wasaaradda shaqada aad iyo aad ugu mahadcelinayna wasiirka dadaalka iyo garab istaaga mar walba uu gobolka Banaadir oo garab istaagay isaga wasaaraddiisa runtii waxaan aaminsanahay iskaashigeenu inuu noqon doono mid ay u aayaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed